mid ka mid ah beelaha deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan beeraleyda beesha Habargadir ee gobolkaasi ku nool ayaa shaaca ka qaaday in xilligan dhibaatooyin xoogan ay kala kulmayaan taliyaha nabad sugidda waxay ku warameen in taliya Maxamed Sheekh iyo ciidankiisa uu si xooga isugu dayaya sida ay hadalka u dhigeen boobka dhulbeereed ay leeyihiin taas oo ay ku tilmaameen inay tahay mid lagu dhacayo hantidooda dhulboobka taliyaha iyo ciidankiisa lagu eedeeyay inay ku hayaan beesha Habargadir ayaa ku yaala deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxay carabka ay ku dhufteen in dhulkooda lagu beerayo xashiish taasna ay tahay waxaan la aqbali karin Cabdiqafaar Axmed Raage iyo Cabdinaasir Axmed Kadiye oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dhulboobka beeraleyda beesha Habargadir uu ku hayo taliyaha nabad sugidda magaalada Marka ee Shabeellaha Hoose Maxamed Sheekh cabashanahay waxaan ka cabanaynaa ururka Niisa ee degmada Marka taliyihiisa Maxamed Sheekh ciidamada uu ninkaasi taliyaha u yahay oo ku abtirsada Niisa isla markaana maskaxdooda iyo maankooda marka aad fiirido uu ka buuxo wax la yiraahdo qabiil iyo mashaakil iyo nolol xumo iyo dacdaro iyo in la wada noolaaba inay mustaxiil ku tahay meesha beerihii aan lahayn oo galeyda iyo sisinta iyo mooska maalin walba inay wax ku dilaan inay wax ku dhacaan inay simaarta siibaan inay simaarta gubaan inay dadka bac ku dhijiyaan shaqaalihi ka shaqeynay inay bac ku dhijiyaan salaad walba ay ku soo kalahaan mar walba oo si walba oo isugu daynay inaan dacwoono oo la kulanay asaga oo aan mar walba heer degmo iyo heer abniba aan ku laalaabanay waxa suurtagal noqola inaan xasilooni iyo walaalnimo iyo dirisnimo aan ku wada noolaan anaga maaha waxa hadda ka cabanayna beelbiya maalo hubaysan oo dhibaataysan maaha ciidamadaas oo salligooda u yahay meesha la yiraahdo Buufow iyo Ceel Jaalle oo labo falaarood ku kala duulayo eeriyada Jannaale iyo Buufow beeraha u dhaxeeya oo maalin walba mid la dilo iyo mid la siibo every day maalin walba ay ka taagan tahay oo si walba oo yeelna inaan qaab maamul iyo qaab deegaan iyo qaab walaalnimo in lagu xalliyo ay suurtagal weeydi aan maanta ka taagana inaan qayra dhaamino dagaal qabiil ma geli karno dawladda lama dirirsanin ma nacbin laakiin waxa meeshaas ka jira waa dhibaato aan u gudbinayno koonfur galbeed Soomaaliya dawladda dhexe Niisa in ninkaas arrinkiisa la soo farageliyo